qarawuxu horumara shaqala hormuudkii agar li markay tacaab deganugu ahaadan hawshiyadana guud deganugu ahaadan hawshiyadana guud horjoogahoodo hawlkarkii wax qabaniyo runtii shirkani waa shir 3 biloodla ah waxaanu dhacaa 3 biloodba hal kulan halka kulan waxa lagu ansixiyaa waxyaabaha mashruuca uu u taagan yahay uu ku shaqeyn doono 3 bilood ka dambe isla markaana waxa lagu kala qaataa warbixinaha la doonayo in xogta lagu soo gudbiyo wixii uu qabtay mashruucu sidoo kale waxay ku soo gudbiyaan gudidu waxa ay doonayaan in laga bedelo ama lagu daro way inoo furmaysaa shirku waan inoo furaya doodeena iyo aragtideenu waxay ku dheehan tahay dhammaan qoraalada in hor yaala sidoo kale waxa la inoogu soo bandhigi doonaa presentationka ay wadaan xogaymuhu kulanka maanta wuxuu ahaa oo ku saabsanaa waa kulankii joogtada ahaa ee gudida dib u habaynta iyo tayeynta shaqaalaha dawladda ee heer qaran oo National Steering Committee weeye marka 3 bilood mar baa la qabtaa waxaan inta badan ka soo qayb galay wasaaradda xubnaha ka ah ee wasaaradda arrimaha maxaan ku qorsheynta wasaaradda shaqo gelinta wasaaradda arrimaha gudaha gaashaandhigga cadaaladda waxbarashada caafimaadka wasaaradaha khusayso dhan maxaan ku raahdaa hay'adda maamul wanaaga shirka markaa shirkan oo kii 3 bilood la joogtada ah waxa la isku leeyahay qorshaha waxqabadka iyo hawlaha socda ee barnaamijka dib u qaabaynta shaqaalaha ee mashruuca World Bank naga maalgeliyo iyo sidoo kale waxyaalaha dadaalka ay samaysay hay'adda shaqaalaha dawladdu runtii qodobada ugu muhiimsanaa 3 bilood kan laga wada hadlay waxa kamid ah in dib la isla eegay qorshaha sanadkan ee barnaamijka dib u qaabaynta shaqaalaha dawladda iyo waxyaalaha la qabanayo oo ka mid ah barnaamijyada lagu soo kordhinayo waxbarashada maxadka shaqaalaha dawladda systemka lagu casreynayo tayeynta xogta shaqaalaha iyo la socodkoodaba barnaamijka e-shilling ee lacagta lagu siinayo shaqaalaha dawladda qiimaynta iyo barnaamijka darajada iyo gunooyinka iyo mushaharooyinka shaqaaluhu helaan iyo siyaasadka laga soo saarayo waxa kale oo isna ku jirtay barnaamijka hawlgabka iyo dhismaha hay'adda hawlgabka ee qaranka oo ciidamada iyo ay ku jirayaan shaqaalaha dawladda wixii hawlgab gaaray iyadoo xeerkii siyaasadkii hawlgabku oo qabiy qoraalkoodii marka uu tagi doono golaha wasiirada sidoo kale waxa laga wada hadlay xeerka shaqaalaha dawladda ee qabiy qoraalkiisu marka golaha wasiirada hor yaalo oo khamiistan laga yaabo in dood laga galo run ahaan waxyaalahaas oo dhami waxa weeye sidii loo heli lahaa shaqaale tayale aqoon wanaagsan leh u qalma shaqooyinka iyo mas'uuliyadaha iyo waajibaadka shaqo laga doonayo qarankana sidoo horumaro horta anu kulle waxaan ku talin lahaa qoladeennan wasiirada hadda halkan fadhida inaynu waa hawl aad iyo aad u culus waana hawl aad iyo aad xasaasi u ah waana hawl aad iyo aad dhinacyo fara badan inaga saameynaysa xaqsiintu hawl yar maaha tirada ugu horeeya imika aynu doonayno inaynu xaqsiinta ay bilaabaan waa 10,000 tobaneeyada kun waxay u baahan tahay markaynu hawsha bilownayna waxay naga dhameystiran yihiin waan meel laga raadinaya aanay maxaan ku yiraahdaa ay jirin taa ugeed baynu u baahannahay markaa inaynu aad iyo aadna una shaqayno qolada steering committee-ga wasaaradahan u xilsaaran iyo hay-adda maxaan ku yiraahdaa ee shaqaalahuna aynu aad iyo aad u shaqayno wax fara badan aynu analyze garayno oo aad iyo aad in fara badan loo rogrogo waxaa dood dheer iyo falanqeyn laga galay mashruucan iyo habsami socodkiisa waxaa warbixina laga soo jeediyey waxyaabihii qabsoomay iyo waxyaabaha qorshaysan waxaa la isla eegay waxyaabaha carqaladaha ku ah dib u habeyntan mashruucan dib u habeynta shaqaalaha dawladda waxyaabaha ku ah dhibaatada oo ay ugu weyn tahay had iyo jeer shaqaalaha buuxdhaafka ah ama
kumeel gaadhka ah dul saaran wasaaradaha iyo hay-adihii dowladda waxaan hay-adda shaqaalaha ku ammaanayaa sida quruxda badan iyo dadaalku ku jiro iyo weliba taxadirku ay ku wado mashruucan tayeynta iyo dib u habeynta shaqaalaha dowladda qaran wuxuu